karo inaguna turka sabta iyo timaad anta caliis kalno tamar kulankii ugu horeeyay waxaan u maleynayaa inuu aad u faahfaahiyay agaasimaha guud waqti badanna ma aha inaan annaka lumino waayo gogashaan waxa loo fidiyay waa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo inay iyaga bareerahooda ay ka soo jeediyaan meeshaan laakiin waxaan aad u rabaa inaan hoosta uga xariiqo inaan idin sheego kulankan sida la idin sheegay waa kulankii shanaad ayuu noqonayaa kulamo hore idinka horeeyay kulamadii hore oo idinka horeeyay haddaan soo qaato haweenka ayaa kamid ahaa waxa kaloo kamid ahaa ururka naafada Soomaaliyeed aad bay waxay uga cabanayeen markii aan doodahooda dhageysanaynay dastuurka ku meel gaarka laakiin dastuurku waa dastuur ku meel gaar mana aha aayadaha quraana oo meel yaala ma waa wax ay ummadu ku heshiisay hadba waxa loo bedeli karaa sidii markaa ummadda ay u heshiiso oo iyo tabteen halka olidala tabantaadino tageerno samo tageer antageerno samo marka hadda cashirkan ka baran waxa waa inaan meel walba geynaa dadka dhan aan marsiinaa dadka dhan inaan marsiina ma aha si uu dastuurka uu u noqdo dastuur loo wada dhan yaho oo ay ka muuqato lahaansho ama ownership ay ka muuqato waxaan rabnaa bulshada qaybaheeda kala duwanna inay qayb ka noqdaan barika maalin markii uu soo dhamaadana inay dhihi karaan qaybtan ama wada hadalkan dastuurka ah waa ka qayb galnay saas waay hadda waxaan ugu sameynay hashtag-an aragteen oo ah sheeko qarameed ama ingiriiska aan national conversation inay noqdo wax aan ka wada sheekeysano oo aan aragno sida loo saxayo dastuurka waxaan soo aragnay hadda aan la kulanay dumarkii ururada bulshada ururada matala dadka naafada ah oo aan la kulanay daraad wada tashigana saana usii badinaynaa sidii Zahra u sheegtay iyo wasiirka u sheegay waxaan rabnaa sheeka qarameedkan inaan gaarsiino magaalooyin fara badan iyo tuulooyin fara badan iyo maamul goboleedyada hadda dhisan bilowgeedii maamul gobolada si aan uga soo qayb gelino sheekada tan iyagana qayb ka noqdaan waxaan cazumnay hadda wasiiradaha dastuurka ee ka socdo maamul goboleedyada dhan oo ugu imaanayaan shir halkan 14 15 16 ujeedadana ay tahay inaan isla wada jaan qaadno oo bari ka maalin markaan soo dhameystireyno aysan dhicin maamul goboleed ama qayb ka mid ah bulshada inay dhihin aniga lama soconin wixii la soo qabanayo waxaan rabnaa wax ku dhisan wada ogol ama consensus ingiriiska lagu yiraahdo inay ka soo baxaan aan rabnaa dadkaygu taysana isku tiirsano oo fiirsaniyo tayeeshamida tasho dadkaygu isku taysana dadkaygu taysana isku tiirsano oo fiirsaniyo tayeeshamida tasho dadkaygu isku taysana
Tada kalon kutos e bulshay fikir sami tatsami kutil man sugo